Kulan ciyaareedkii horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha dalkeena Soomaaliya ayaa maanta isku wajahay kooxaha Caawa Maalin ee Horseed iyo sidoo kale kooxda Madbacadda. Labada kooxood ayaa markaasi soo bandhigay ciyaar aad loo jecleystay waxaana gacan sareysay dhiigga kooxda kubadda gacanta ee Caawa Maalin ee Horseed. Waxay soo bandhigtay ciyaar aad u sareysa maanta oo ay markaasi ahayd kulan ciyaareedkoodii sideedaad labada kooxood, halka kooxda kubadda gacanta ee Madbacadda ay daneynayeen in galabta ay guul gaaraan walow taasi aysan dhicin, waxaana ay sameeyeen dadaal badan sidii ay markaasi kulan ciyaareedkan wax uga bedeli lahaayeen. Ciyaarta inta ay socotay waxa ay kooxda Horseed ay la timid 27 gool halka kooxda kubadda gacanta ee Madbacadda ay la yimaadeen 11 gool, waxaana sidaasi guusha ku raacday gabdhaha kooxda Horseed. Kooxda Madbacadda ayaa dhammaan kulamada ay ciyaartay waa laga guuleystay, wax kulan oo ay markaasi guuleysatay ma jiraan. Dhanka Horseed ee 8 kulan ay ciyaartay waxa ay markaas soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan, dhammaan waa ay soo wada guuleysatay waxayna hogaaminaysaa horyaalka. Waxaa ku soo xigtay naadiga Hagen waxayna ka horeysaa 2 game oo ay guuleysatay oo ay markaasi qayb ka tahay kooxda Hagen waxaana laga koreeyaa 6 dhibcood. Hagen ayaa weli fursad u haysta haddii ay 2 kulan ay soo badiso kulanka saddexaad ee Horseed ay iskaga hor imaanayaan. Haddii ay ka badiso waxay noqon doonaan markaasi barbaro oo markaasi waxaa la eegi doonaa labada koox yaa goolal badan, sidoo kale waxaa la eegi doonaa yaa laga soo adkaaday, taas ayaa lagu qiimeyn doonaa. Haddii kooxdii iskoorka ee dhanka goolasha ay isku dhibco noqdaan waxaa la aadi doonaa ciyaar markaasi play-off ama ciyaar markaasi ugu dambeysa oo lagu celin doono kulan ciyaareedka. Kooxda Madbacadda ayaa la filayaa kulamada u harsan oo kaliya ay tahay inay la ciyaarto naadiga Hagen iyo sidoo kale naadiga Madbacadda oo ay la ciyaari doonto kooxda Muqdisho City Club. Labadaas kulan ayaa u harsan, haddii labadaas kulan laga adkaado waxay noqon doontaa mid markaasi lagu hungoobay, halka naadiga Hagen ay u harsan tahay oo kaliya naadiga Madbacadda oo 2 kulan ay la ciyaartay, kulan baaqi ayuu noqday iyo sidoo kale kulanka hadda la ciyaari doono iyo 1 kulan oo Horseed ah ayaana u harsan kooxahan. Waxaana la filayaa isbedel wanaagsan inay kusoo bilowdaan xilli ciyaareedkan oo aad markaasi u xamaasad badan horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya, waxaana la filayaa in kooxahan ay markaasi isbedel weyn ka muuqda ay la yimaadaan xilli ciyaareedkan oo aad ku xiisaha badan tartanka horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya oo qayb ka tahay oo la doonayo in markaasi isbedel weyn ka sameeyaan horyaalkan inta uu socdo, waxaana koox walba laga sugayaa in dhammaan kulamada ay ciyaari doonaan ay wax badan ka bedeli doonaan. Haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee Horseed ee Caawa Maalin ayaa maanta ka ambabaxday magaalada Muqdisho, waxa ay markaasi ku wajahneyd dalka Tanzania. Naadiga Caawa Maalin ee Horseed ayaa markaasi ka qayb gali doonta ama u safreysa tartanka markaasi Tanzania lagu qaban doono kulan ciyaareedka CAF Confederation Cup oo kaalinta 2 ay ka soo galeen naadiga. Dhammaan maamulka iyo ciyaartoyda ayaa ka ambabaxay dalkeena Soomaaliya. Kulanka koowaad waxay ciyaari doonaan 16 bisha, koox Burundi ka socota ayay la ciyaari doonaan. koobka labaad ee Afrika laga ciyaaro CAF Confederation Cup ayaana la ciyaari doonaa 16 bishan ayayna ciyaari doonaan, waxayna gaari doonaan maalinta berito ayaa si weyn loogu soo dhaweyn doonaa dalka Tanzania. Waxaana la filayaa in markaasi ay isku diyaariyaan kulan ciyaareedkan oo 16 bishan la ciyaari doona. Kooxda Horseed ayaa horey waxa ay ugu qayb gashay tartamadan iyadoona guulo waaweyn ka keentay, ayaa la filayaa sanadkan in mar kale guulo ka keenaan. Laakiin kooxaha ka qayb gala tartankan ka socda dalka Soomaaliya
inta badan waxay kusoo bandhigaan ciyaar aad u wanaagsan walow aysan weli la xaqiijin koox Soomaali ah ee soo qaada koobka Confederation Cup iyo sidoo kale koobka lagu magacaabo African Championship ee kooxaha ku guuleysta horyaalka. Weli ma aysan dhicin Soomaaliya inay ku guuleystaan. Waxaa la filayaa sanadkan in ay markaasi guulo waaweyn ay kasoo hooyaan tartanka qaybihiisa kala duwan oo aad u xiiso badan sanadkan inay isbedel ka sameeyaan dhammaan ciyaartoyda iyo naadiyada ee ka qaybgalaya horyaalka qaaradda Afrika ee dalkeena.